daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka falaqaynta Bollywoodka. Barnaamijka falaqaynta Bollywoodka waxaa ku soo qaadanaynaa waxaa macquul ah jilayaal badan aad wada taqaanaan kuwaas oo shaashada koor ku aragteen kuwaas oo aadan ogeynina in ay geeriyoodeen. Haddaba daawadayaal ku soo dhawaada xidigaha Bollywoodka ugu caansanaa aadkana loo daway balse maanta aan adduunkaba ku nooleen iyo taariikhdooda oo kooban. Rajesh Khanna wuxuu dhashay sanadkii 1942. Superstar-kii Rajesh Khanna waa lama ilaabaan waana mid ka mid ah xidigaha Bollywoodka ay ku faanaan. Sidoo kale Rajesh Khanna wuxuu dhalay atirishada Devital Khanna. Devital Khanna waxaa qaba Akshay Kumar ama Mr. Bond. Daawada ma ogtahay Rajesh Khanna inuu ku jiro filimkii ay hogaamiyaha ka ahaayeen Akshay Khanna ama wiilka Mastana iyo Aishwarya Rai. Rajesh Khanna ayaa filimkan aabbo ku jilay wuxuuna aabbo u ahaa atooraha filimkan oo ahaa wiilka Mastana. Saeed wuxuu dhashay 1929. Filimaantiisa oo lagu soo xasuusan doono waxaa ka mid ah filimka Dil kaasoo soo baxay 1990 iyo Albela oo soo baxay 2001 wuxuuna geeriyooday sanadkii 2015. Om Puri wuxuu dhashay sanadkii 1950 wuxuuna geeriyooday sanadkan aynu ku jirno. Amrish Puri ama Salamsey wuxuu dhashay sanadkii 1923. Amrish Puri waa mid ka mid ah xidigaha ugu qaalisanaa ee abid soo mara Bollywoodka wuxuuna la soo shaqeeyay jilayaashii barasamaadkii. Sidoo kale wuxuu la soo shaqeeyay xidigaha haatan hogaaminaya Bollywoodka waana jilaa ku soo baxay doorkiisa laadarnimo wuxuuna adduunka ka haajiray sanadkii 2005. Nirmal Bante ama Baba sida u taqaanaan wuxuu dhashay sanadkii 1962. Filimaantiisa ugu caanka ahaa waxaa ka mid ah Pyar Kiya To Tarna Kiya ee hogaamiyaha ka ahaayeen Dharamantar, Salman Khan iyo Abbas Khan. sidoo kalena waxaa atirisha ka ahayd Kajal iyo waliba filimkii Shikari. Nirmal Bante wuxuu geeriyooday sanadkii 2010. Rani Reddy ama Waqwaq wuxuu dhashay sanadkii 1959 wuxuuna geeriyooday 2011. Laxmikanti ama Balak wuxuu dhashay sanadkii 1954 wuxuuna geeriyooday sanadkii 2004. Sunil Dutt wuxuu dhashay sanadka markuu ahaa 1930 waana baaba aabihiis. Sunil Dutt waa halyeey Bollywood waana shakhsi ka mid ahaa xidigihii ugu awoodda badnaa waqtigiisii. Sunil taariikh weyn ayuu reebay wuxuuna ahaa shakhsi ku lug leh siyaasadda wuxuuna geeriyooday sanadkii 2005. Satashvi ama Maqa sida u taqaanaan ayaa dhashay sanadkii markuu ahaa 1950 wuxuuna geeriyooday sanadkii 2014. Feroz Khan waa Fardeed Khan aabihiis. Feroz Khan ayaa dhashay sanadkii markuu ahaa 1939 wuxuuna geeriyooday sanadkii 2009. Sudhir ayaa dhashay sanadkii markuu ahaa 1944 wuxuuna geeriyooday sanadkii 2014. Rasaaq Khan ama Qodan ayaa dhashay sanadkii markuu ahaa 1951 waana mid ka mid ah xidigaha Bollywoodka. sidoo kalena aflaanta weligiis inta badan wuxuu uga soo muuqan jiray doorka shactarada wuxuuna geeriyooday sanadkii 2016. Devan Verma wuxuu dhashay sanadkii markuu ahaa 1973 wuxuuna geeriyooday sanadkii 2014. Jihan Khan ayaa dhalatay sanadkii markuu ahaa 1988 waana atirishadii filimkii Kajini oo hogaamiyaha ka ahay Amir Khan waxayna iska ka haajirtay sanadkii 2014. Farooq Sheikh wuxuu dhashay sanadkii 1948 wuxuuna geeriyooday sanadkii 2014. Mahathir Shah wuxuu dhashay sanadkii 1960 sidoo kale wuxuu geeriyooday qarnigii cusbaa ee 2000. Koka Kapoor ayaa dhashay sanadkii 1940
wuxuuna geeriyooday sanadkii 2011. Tom Shifburi wuxuu dhashay sanadka markuu ahaa 1938 wuxuuna geeriyooday sanadka markuu ahaa 1992. Ganesh Hunku ayaa dhashay sanadka markuu ahaa 1940 wuxuuna geeriyooday sanadkii 2013. Divya Bhatt waxay dhalatay sanadkii 1974 waana shakhsi baal dahab ah ka gashay taariikhda Hindiya intii ay nooleed. waana xidig weyn oo aan abid la iloobi doonin jiliilkeedii. waxayna iska ka haajirtay sanadkii 1993. Amjad Khan wuxuu dhashay sanadka markuu ahaa 1940 sidoo kalena wuxuu geeriyooday sanadkii 1992. daawadayaal xidigahan geeriyooday maxaa ku xasuusataan qaabjiliinkoodii? barnaamijka falaqaynta Bollywood waxaan ila socodsiinaya anigoo Cabdicasiis Cabdullaahi Cabdicasiis Nadara. waxaa fududeeyay Som Films. amaana Allah sidaasi nabadgelyo.